habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan hay Cabdiraxmaan Bidhaan wararkeena waxa ugu waaweyn dadka cadhaysan xadhiga Mukhtaar Robow ayaa maanta ka banaan baxay Baydhabo waxaana ku dhimatay ugu yaraan 12 qof gargaarka ayaa si habsami leh u gaadhay dekedda Xudayda ee Yemen kadib markii xabad joojin la gaadhay noloshu waa hooy waxaanu eegaynaa dadka ku guriga la dalkan Britain hargeysana waxaanu idinka hayna bandhig ay dhaqan oo ay sameeyeen qowmiyadda Itoobiyaanka halkaas ku nool kala soco BBC News Somali televisionka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkan waa London caawa iyo caalamka aynu ku bilowno magaalada Baydhabo ee rabshada ayaa ka dhacay magaaladaasi kadib xadhiga Mukhtaar Robow waxaana la sheegayaa in ay dad badan cadhaysan yihiin oo ka dibad baxaya magaalada waxaana la maqlayay baa la leeyahay rasaas haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee Baydhabo waxaynu arkaynaa in halkaasi xildhibaan Cabdishakuur Buule oo ah gudoomiyaha guddiga amniga ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya lagu dilay waxaana la sheegayaa in halkaasi rasaas ku dhacday xildhibaanka 12 qof oo kale ayaa rabshaduhu ilaa hadda ay kalaafteen oo ku dhintay sida ay xaqiijiyeen isbitaalada magaalada Baydhabo inkastoo aanay beesha caalamku aad uga hadal xaaladda cakiran ee toddobaadkan ka taagan Soomaaliya haddana safiirka UK u fadhiya Soomaaliya David Conker ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku qoray inuu aad uga xun yahay aan idhaahdee waxa ka socda halkaasi maamulka Koonfur Galbeed gaar ahaan waxaana uu sheegay in uu ka xun yahay in isu bedelaan rabshado dhinacyada ku lug talena waxa uu safiirku ugu baaqay inay isxakameeyaan oo ay eegaan buri shacabka iyo kumanaanka barakacayaasha ay halkaasi ku nool kol sii horeysay ayaan haddaba waxa aanu arrimaha ugu dambeeyay ee magaalada Baydhabo weydiinay wariye halkaasi jooga wariye Muxyidiin Xusni magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar ah maamulka Koonfur Galbeed maalintii labaad waxa ka socda banaanbaxyo ay dhigayaan dad careysan kuwa oo ka kacay kadib markii shalay xarunta madaxtooyada ee magaalada Baydhabo laga qabtay Sheekh Mukhtaar Robow Mansuur oo kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed doorashada la qorsheeyay inay dhacdo 19 bishan marka sidii shalay banaanbaxyadu ay u bilowdeen ilaa iyo maanta way socdaan dadka careysan ee wadooyinka bartamaha magaalada Baydhabo isugu soo baxay waxay dhagaxaan ay ku gooyeen wadada marta bartamaha magaalada Baydhabo sidoo kale waxa ay tahay gubayaan taayeero magaalada qiiq iyo waxa ka baxay uuro meelaha kala duwan ee xaafadaha dad careysan ayaa sidaas sameeynaya sidoo kale dadka maanta waxa ay boorarkii ay ku dhiganaayeen musharaxiinta qaar intay ka fujiyeen waxay ku dhijiyeen sawirka Sheekh Mukhtaar Robow Mansuur oo shalay dawladdu ay sheegtay inay iyadu amartay xarigeeda Baydhabana laga qabtay dalka Yemenna waxaa jirta rajo hor leh kadib markii ay hirgashay xabad joojinta magaalada dekedda ah ee Xudayda labada dhinac ee ku dagaalamaya ayaa heshiis gaadhay kadib wada hadallo ka dhacay Sweden waa kan xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ku dhawaaqay shalay too heshiiskaasi waxaan ka gaarnay heshiis magaalada dekedda ee Xudayda taasi oo si dhexdhexaad ah ciidamada looga saarayo dekedda iyo magaalada iyo xabad joojin gobolka oo dhan saameeysa qayb weyn ayay qaramada midoobay ka qaadanaysaa waxayna fududaynaysaa in hawlaha bini'aadanimo iyo badeecooyinka ay gaaraan rayidka xalay iyadana waxaa senadka Mareykanka aqalka senadka Mareykanka ay u codeeyeen in gabi ahaanba la joojiyo kaalmada military ee weerarka isbahaysiga Sacuudiga hogaaminaya ay Yemen ku hayaan waxaana la og yahay in dalkaasi Yemen uu imika dagaalku ka socday 3 sanadood u dhaxeeya falaagada Xuutiyiinta oo ay Iiraan taageerto iyo dawladda Yemen ee sharciga oo Sacuudiga ay taageeraan waxaana ay sababtay in 14 milyan oo halkaasi ku nooli ay macaluul ku qabato haddii aynu eegno maabkan waxaanu arkaynaa in magaalada dekedda ah ee Xudayda ay halkaasi ku taalo Xudaydana marka dalka loo qaybiyo dadkiisa 3 meelood laba mid kamid ah ayaa waxa marta mucaawinadooda Xuutiyiinta ayaa halkaasi haystay oo xukumayay laakiin se imika isbahaysiga Sacuudiga iyo Mareykanku waa ay ogolaadeen heshiiskan waxa kaloo iyaguna soo dhaweeyay Iiraan in halkaasi magaalada laga saaro ciidanka gargaarkuna uu dadka oo dhan uu halkaasi ku gaadho si ay u noqoto
in dadka Yemen ee macluushan loo gurmado oo qaramada midoobay halkaas kala soconayaan. Ismaan Cabdi Xasan ayaa warbixintan inoo haya. kuwani waa wajiyada dhibaato bani aadamnimo tii ugu xumayd adduunka. rayidkan xeryaha ku yaalla waqooyiga Yemen kama soo qixin dhibaatada ka dambaysay dagaalka ee waxa ay ka soo carareen dagaalka. Jabiir ma haysato wax lacag ah. Caleemo cagaaran ayay qoyskeeda u karinaysaa si ay ugu quudiso. wax kale oo aan cunno ma haysanno. hay'ado gargaarna halkan ma imaanin. أحمد محمد عبد الله خيرب من منطقتين. wax kastaba dagaalka ayaan ku weynay. Carruurtaydu way gaajoonaysaa, lacag ma haysanno, ma garanayno waxaanu samayno, way nagu soo oodantay. meel u dhow waxaa joogtay hooyo cunug sidata. aad ayuu u xanuunsanayay cunuga, mana heli karto daawada uu u baahan yahay. tani waa waxa ay ka soo carareen dadka halkan jooga. bilooyin dagaalka ka socday hareeraha magaalada Xudayda wuu sii xoogaystay. maalin kasta waa la duqeeyaa, boqolaal ayaana ku dhimata. duqayntu waxay si weyn u waxyeelaysay dekedda ay gacanta ku hayeen fallaagada Xuutiyiinta, waxayna ahayd halka keliya ay cuntada ku helaan dhammaan dadka Yemen. Isbahaysigu waxay sheegayaan in fallaagada ay u adeegsanayeen inay hub ka soo dejiyaan, balse xayiraadda iyo dagaalka hareeraha magaalada Xudayda ayaa curyaamiyey dalka oo dhan, iyadoo malaayiin ay wajahayaan macluul. Khamiistii kulan ka dhacay Sweden ayaa keenay rajo yar. qaybaha dagaalamaya way isgacan qaadeen kadib markii ay aqbaleen soo jeedinta qaramada midoobay, taasoo ujeedkeedu ahaa in lagu dhammeeyo dagaalka dekedda. dhinaca Yemen, warka heshiiska farxad ayay ku soo dhoweeyeen fallaagada Xuutiyiinta. bilooyin kadib dagaalka weyn ee Xudayda iyo xabad joojinno badan oo la jebiyey, su'aashu waxay tahay haddii wakhtigan qaybaha dagaalamaya ay dhabtii hubkooda dhigayaan. cadaadiska bulshada caalamka ee ka imaanaya UK, isbahaysigooda iyo qaramada midoobay ayaa qayb weyn ka ah rajo badan oo jirta. waa rajo ay dadka Yemen aad u doonayaan. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. dalka Faransiiska qofkii afraad ayaa dhintay kadib weerarkii lagu qaaday salaasadii suuqa Christmaska ee magaalada Strasbourg. ninkii looga shakisanaa weerarkaasi ayay boolisku dileen. waxa uu ahaa 29 jir Jeref Shekat, waxaana uu dhintay kadib markii ay booliska rasaas isweydaarsadeen. kooxda sheegata dawladda Islaamiga ah ayaa la soo sheegay in laga saaray meeshii ugu dambeysay ay ka fadhiyeen dalka Suuriya. hay-ad British oo Suuriya dusha kala socota ayaa sheegtay in kooxda Kurdida ah ee Mareykanku taageero ay qabsadeen xaajiin meesha la yiraahdo, iyadoo Mareykankuna cirka ka taageerayo. dhaqaalaha labaad ee adduunka ugu weyn ayaa laga dareemayaa calaamado muujinaya inuu gaabis yahay. xogta dhaqaalaha Shiinaha ayaa muujinaysa in kobaca sanadlaha ee baayac mushtariga tafaariiqda ahi bishii November ahaa kii ugu liitay 15 sano ugu dambeysay. arrintan ayaa soo baxday iyadoo ay taagan tahay muranka ganacsi ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha oo saameyntiisa leh. inuu qofku helo guri uu ku noolaado dalkan Britain qaali ayay noqotay. dhalinyaro badan ayaa khaatiyaan ka taagan iyagu guri la'aanta. sanadkii aanu soo dhaafnay 100,000 oo dhalinyaro ah ayaa raadsaday si loo siiyo kaalmo si ay u helaan guri ay degaan. adeegyada caawinaya dhalintaasna iyagana culays badan ayaa fuulay. Cabdixaafid Caawil Ismaaciil ayaa inoo haya. Theo habeenkii ayaan la hadli jiray. waxaan ku oran jiray waan ka xumahay qaabka aad u nooshahay. Connie iyo Theo 3 bilood waxa ay ku hurdeen kuraasi. gabadha 18 jirka ahi waxa ay la deganeen ninkeeda waalidkii markii ay kala tageen saygeeda, waxaana ku dhacay guri li'in. marba meel ayay seexan jireen, ma ay aqoon meesha ay habeenkaas jiifsan doonaan. waxaan ka warwari jiray waxa ka mid ah waxaan ka cabsan jiray in Theo adeegyada carruurtu iga qaataan, waayo muusan haysan hoy wanaagsan. xarunta ku taalla Manchester dadka guryo la'aantu haysata ayaa isugu yimaada. dhalinyarada iyo dadka aan guryaha haysan ayaa halkan jooga iyaga oo warwar badani ka muuqdo. Sam oo 20 jir ahi waxa uu rajaynayaa inay xaruntu caawa jiifkiisa iyo quraacda ka bixiso.
waa xaalad aad iyo aad u adag waa xaween qabow adag baa dhacaya waad ku xanuunsanaysaa markaasana dareemaynu si dee magaranaysaa caadiya dhibaato badan weeyaan waa inaad wax walba oo aad qabowga kaga hortegi karsa aad samayso hadday bustatay hadday wax kala tahay dabeetana aad welibana isqarisood meel dee yara dahsoon isgeliso dadkan dhibaatooyin kala duwan ayaa haysta qaarkood guryihii ay ku jireen ayaa laga saaray qaarkood guryo kumeel gaar ah ayay ku jiraan magaaladan baahi weyn oo guryo la'aan ah ayaa ka jirta dhibaatooyinkan waxaa ka mid ah dadka ku jira guryaha kumeel gaarka ah ma guuri karaan aydan 4 sannadood ayuu guri la'aa tan iyo intii aabihii ku khasbay inuu bakistaan u aado guur loo qorsheeyey wiilkan oo 24 jir ahi diyaar ayuu ahaa inuu ka guuro xaruntan kumeel gaarka ah laakiin waxa uu waayay cid ka karaysa guri maadaama oo uu gunno qaato guryo ayaad helaysaa marka aad eegto warbixinta waxaad arkaysaa in aanay aqbalayn dadka gunnada qaata ugu dambayntii Connie iyo Theo waxaa ka caawiyey inay guri helaan xarun yar oo samafal way igu adkayd in aan fahmo in aan guri waayo in aan u koriyo qaabka carruurta loo korsado laakiin aakhirkii waan gaarnay guri ayaan helnay dawladdu waxa ay sheegtay in lacag ka badan 1 bilyan loo qoondeeyey si wax loogaga qabto guryo la'aanta qorshuhu waa in qof kasta maalin ay noqotaba uu guri helo uu dego mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli doontaan muuqaallo falanqeyno dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamkaba nagala soco bbc.somali Twitter iyo Instagram weli waxa inoo soo socda barnaamijka click ee tiknoolajiyada kamaradaha Japan ee qabashada tuugta iyagu safka hore kaga jira weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka balaan idin xusuusiyo qodobada caawa wararka ugu waaweyn dadka cadhaysan xadhigga Mukhtaar Robo ayaa maanta ku bannaan baxay Baydhabo waxaana ku dhimatay ugu yaraan 12 qof gargaarka ayaa si habsami leh u gaadhay dekedda Xudayda ee Yemen kadib markii xabad joojin la gaadhay lacagta kaashka ama cadaanka ah waxay tahay dadku aad u isticmaalaan adduunyada inteeda badan laakiin tuulo yar oo ku taala dalka Togo waxa la iswadaarsadaa alaabta oo la kala gadistaa BBC-da ayaa booqatay Suhayb Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa waa suuq aan la mid ahayn kuwa kale waa 9kii subaxnimo madaxa tuuladan ayaa u diray Oluhubaaba suuqa si uu ugu soo sheego dadka in ganacsiga ay bilaabi karaan waana sidan qaabka loo furo suuqan mashquulka badan ee ku yaal tuulada Togoville 65 kilomitir ayay dhanka bari ka xigtaa caasimadda Lom ee dalka Togo waa subax sabti ah harada Togo dadka tuuladanna waxa isku diyaarinayaan ka ganacsiga alaabahooda balse kan suuq caadi ah maaha waalidiintayadii ayaa aasaasay suuqa wax lagu kala beddesho sidaa daraaddeed dadka aan weli lahayn macaamiil wax ka iibsata waa ay noolaan karaan tuuladan dadkeeda ayaa sheegaya in ay isku dayayaan ilaalinta ganacsi ee dhaqankii hore ma jiraan wax lacag ah oo la isa siinayo ganacsatadana waxay isweydaarsanayaan galley digaag iyo kalluun waxaan halkan keenaa sabti walba 3 dambiil oo ay ku jiraan kalluun la dubay anigana waxaan dib guriga ula laabtaa 3 jawaan oo ay ku jiraan galley digirta yar iyo tan waaweynba tuuladan ku taala Togo waa mid ku adag dhaqankeeda waxa aanu go'aansanay inaanu u ilaalayno jiilka soo kacaya oo aanu tusno carruurta bari dhalan doonta sidii ay awoowaashayo u noolaayeen waa sida ay tuuladani wax u qabato annaga oo ilaalinayna qaabka looga ganacsado sidan ayaa loo kala beddeshaa badeecadda iyada oo la isdhaafsanayo gabaldhiciina dadka waxa ay la laabtaan dalagooda ayaga oo ku faraxsan ganacsiga maalintaasi waana mid aad ugu fudud dal aysan dadkiisa mar walba haysan lacag cadaan ah
weli qaaradda Afrika ayaynu ku jiraynaa qaaradda Afrika waxaa jira walaalahay meel haween tiro badan iyo gabdhaha yaryar oo aan iyagu helin faa'iidooyinka internetka khubarada ayaa qiyaasaya in uu jiro farqi u dhaxeeya ragga iyo dumarka oo 12% oo ay raggu ku badan yihiin marka ay timaado helitaanka xagga internetka laakiin iminka dawladaha iyo hay'adaha samafalka ayaa isku dayay in arrintaasi wax ka bedelaan si gabdhaha loo siiyo iyagana fursad ay internetka kaga faa'iideysan karayaan Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa ka waramaya gabdhahani waxay baranayaan luqad cusub oo la yiraahdo coding oo ah dhinaca internetka Priscilla Dacho waxay doonaysaa inay noqoto qof soo saara barnaamijyada software-ka waxaana ay aaminsan tahay in gabdha ahaan darteed aanay tiknoolajiyadda fursad u helin waxaa jirta aragti ah in wiilasha oo kaliya ay tiknoolajiyadda samayn karaan sababtoo ah wax walba way qaban karaan gabdhahana waxba inaanan samayn marka wax walba oo ay doonayaan waa ay helaan akademiyada Soronko waxa ay tababartaa haween iyo gabdho yaryar sida Priscilla si ay wax ugu curiyaan tiknoolajiyadda laakiin internetka oo qaali ah ayaa waxbarashadooda ku ah caqabad waxaan haysanaa 3 shirkadood oo internetka bixiya waxaa jira mid aanu u galno qiimihiisa oo hooseeya laakiin ma degana waxaa jira mid qaali ah oo uu fiican yahay internetkiisu casharada qaar waxaan hubinaa in cidna aanay daawanaynin muuqaal toos ah sababtoo ah internetku waa qaali cilmi baaris uu sameeyey Ecobank ayaa muujinaysa in Afrika ay tahay meesha internetka ugu qaalisan dunida daraasad hay'adda World Wide Web ay samaysay 2015 waxa ay sheegaysaa in heerka gelista internetka ay hoos u dhacday gaar ahaan haweenka marka la eego iyo gobollada miyiga ee dadka saboolka ay ku nool yihiin waxa suurtagal ah in qiimuhu ka sareeyo halka ay qaramada midoobay hiigsanayso oo ah 2% dakhliga bishii soo gala haddii ay jiraan dad internetka helana waxa ahmiyadda la siiyaa wiilasha Nicola Bidwell waxay gabdhaha bartaa sidii ay u samayn lahaayeen bulsho dhinaca internetka oo isku xiran oo iyagu ay leeyihiin haween badan ayaa ku nool miyiga Afrika way ku adag tahay shirkadaha telefoonada inay goobahaasi oo dhan gaarsiiyaan laakiin haddii aad taageerto isku xirka bulshada waxay iyaguna tababarayaan dumarka si ay wax u qabsadaan haweenka iyo gabdhaha yaryar sida Priscilla waxay rajo ay ka qabaan in maamulku uu hagaajin doono arrintan taasi oo saameyn ku yeelan doonta sinaanshaha iyo waliba mustaqbalka dhaqaalaha waddanka Ghana caawiyo ciyaaraha horyaalka Ingiriiska ee Premier League ee dhamaadka toddobaadka la ciyaaro ayaa kaabiga inagu soo haya Manchester City iyo Everton ayaa Paris haleelaya Tottenhamna Burnley ay fooda istari doonaan garoonka Wimbledon ee caanka ah ee tenista lagu ciyaaro ayaa 3 laab la rabaa in la ballaariyo kadib markii ay dhul ka iibsadeen Wimbledon Park Golf Club qolada la yiraahdo $80 milyan ay ka bixinayaan weli laakiinse waa in maxkamadda la mariyo oo ogolaanshiyo la siiyo iibkaasi Anthony Joshua waa feeryahanka Britishka ah oo ayaa sheegay inuu rabo inuu la ciyaaro horyaalka feerka culus ee WPC Deontay Wilder bisha April ee sanadka soo socda Joshua ayaa isagu haysta suunka IPF WPO iyo waliba WPA Wilders oo ay barbargaleen Tyson Fury ciyaartii ugu dambeysay ayaa sheegay in Joshua uu aad u baryayo inay wada ciyaaraan caawana waa caawadii tiknoolajiyada ma ogtahay caawana waxa weeyaan caawadii tiknoolajiyada waxa ma ogtihiin kelmadda nacas haddii aad Google-kaaga geliso ama doqonba ee aad baadho in ay soo galayaan sawirada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa kale oo aad ku maqli doontaan barnaamijka tiknoolajiyada robot isaguna cabitaan ku keenaya bal nala daawada click waa tahay tasawirada waxa soo baxaya sawirka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump agaasimaha guud ee Google Sundar Pichai ayay su'aalo weydiiyeen guddi ka tirsan baarlamaanka Mareykanka iyada oo lagu eedeeyay xasha siyaasadeed mar la su'aalay sababta ay tan ku timi waxa uu ku jawaabay inay tahay uu nidaam la raaco
waa shinni wax xambaarsan runtii waa dareeme ay samaysay jaamacadda washington cilmi baarayaal ayaa shinnida ku raray sanduuqyadan yaryar si ay macluumaad ku saabsan cimilada iyo daaqa ay beeralayda ugu soo ururiyaan baatari ayay ku shaqeeyaan matoorada yaryari habeenkiina waa la buuxiyaa shinnidaasina waa mashquul mashiinada roobadka ah waxaa loo sameeyey inay naga caawiyaan nolol maalmeedka laakiin ma ku aamini lahayd inay ku siiyaan koob cabitaan ah iyadoo la isticmaalaya gacan elektari ku shaqaynaysa waxa roobadkani uu isticmaalayaa birlab koob cabitaan ahna halka aad fadhido ayuu kugu dhiibayaa ugu dambayntiina dalka jabaan maskax macmal ah oo tiknoloji ku shaqaysa ayaa gacanta ku dhigtay tuug dukaan xadayey waxaa la qiimeeyey kamaradaha muuqaalada duuba oo barta dhaqanka tuugta iyo qaabka ay u shaqeeyeen marka ay dukaamada xadayaan waxaanay duubi karaan tuugta wax xadaysa ninkan haddaba waxa gartay tiknolojigan waxaana qabtay shaqaalaha dukaanka isaga oo isku dayaya inuu koofiyad xado bal iminkana xagga iyo hargeysa aynu tagnee 800 oo ka mid ah bulshada reer Ethiopia ku nool magaaladaasi ayaa isugu yimid dhawaan goob ay ku xusayaan maalinta qowmiyadaha ee dalka Ethiopia waxaana ay soo bandhigeen ciyaaraha dhaqanka ee Ethiopia waxa sidoo kale ay nabad ugu baaqeen Soomaalida iyo Oromada dhowr jeer ku dagaalamay gudaha Ethiopia waxa warkan inooga soo diray magaalada hargeysa wariyaha BBC-da Sidiiq Maxamed Burmad sham af Soomaaliga wuu fahmayaa laakiin kuma hadli karo waxaan weydiiyay hawsha ay meesha ku qabsanayeen waxaan isugu soo baxnay xuska maalinta dhaqanka Ethiopia aad baan u faraxsanahay markii hore dhaqankeena kumaanan soo bandhigi jirin hargeysa nin walba dhaqankiisa ha muujiyo annagoo isjecel dhalinyaro ayay u badnaayeen dadka goobta ku sugnaa waliba haween in badan oo kamida oo aan la sheekaystay af Soomaaliga si wanaagsan ayay ugu hadlayeen maadaama ay muddo dheer halkan ay ku noolaayeen Saamiye Maxamed Cabdi markii hore Soomaaliyeed ayaan u haystay laakiin waxa ay sheegtay inay Oromo tahay waxaanay ka xun tahay dagaalada Oromada iyo Soomaalida ku dhaxmaraya Ethiopia waxaan doonay message jira labada qowmiyadood la leeyahay oo islaayeen ay walaalaha Oromi Soomaalidu labadaba waan hay Oromana ma oranay Soomaali ma laakiin labadaba waan hay Soomaaliland horta intaasan ku leekaaday waxay afkii Soomaaliland ku hadlaya maanta af Soomaali waan ku hadlaya maanta ma anigoo Oromo haddana Soomaaliya ayaan ogolahay in walaalkay islaayaan maya waxa leeyahay dadkan islaynayo dib isugu noqda saan marka hore wada nooleen imkana noolaano base baan jecelnahay imkana nabad aan ku wada noolaano dhamaantii qowmiyadda Oromada oo aan waayadii hore si weyn uga soo qayb gali jirin munaasabadaha caynkan oo kala ah ayaa ugu badnaa Ethiopia-kiisa ka joogay waxaana ay sheegeen in ay rabaan in meel walba nabad lagu wada noolaado Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa caawana ugu dambeyntii waxaan idinkaga tagay hadday da'daadu aad u weyn tahay micnaheedu maaha inaad hawada isku laba rogi ka reeynin haddii aad rabto haweenadan 102 sanadood baarka ka jartay Erena Oshi ayaa noqotay qofkii ugu weynaa abid ee hawada dhex maaxda oo idinka arkaya waxa ay samaysay oo ay u sameynaysaa waxaan oo dhan hay'ad khayriya si ay lacag u siiso waxa kale oo ay rabtaa dabcan inay gasho recordka Guinness-ka la yiraahdo ee dadka waxyaabaha cajiibka xusuusno wararka ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaa bbc.com/somali intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena caawa dhamaantay waxaan idin leenahay habeen wanaagsan inta aynu isniinta kulmayno waxaan idin leenahay nabadgelyo